سلطان محمد سلطان أحمد سلطان ديريه أو كمدا سلادين تريس وماليلان أيا waxa uu waraysi gaar ah siiyay telefishinka caalamiga ah ee Ramad TV waraysigaasi oo kaga warramay arrimo badan oo muhiim ah arrimahaasi oo ay kamid yihiin khilaafka midooyinkii u dambeeyay ku soo noqnoqonayay wasaaradda waxbarashada Somaliland iyo dugsiyada Brayfadka waxa uu sidoo kale ka hadlay safiirka Djibouti u fadhiya Somaliland oo miidiyaha ka hadlay injineer Faysal Ali Waraabi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID waxa uu sidoo kale ka hadlay odayaal dhaqameedkii madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ku qaabilay qasriga madaxtooyada isla markaasina ay go'aamo ka soo saareen arrintii jabhadii Korneyl Caare waxaana kamid ahaa hadalladii Sultan Maxamed Sultan Ahmed سلطان عبد الرحمن سلطان دي laanta kalaba hayday guud ahaan bilaha garxajis ka koobnayd ee waqtigoodii geliyay dadaalka faraha badan lana geliyay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa tan su'aasha markaan soo dhawaado kulankii madaxweynaha iyo beesha dhexmaray horta dee gudoomiye safkarad baa meesha ka soo baxay madaxweynuhu waa uu cafiyay raggii dhalinyarada ahaa ee la socday ninka korneylka ah ee Caare gudoonada waa la soo wada qaatay oo waa soo dhaweynaynaa wixii halka ka soo baxayba inta dhiman ee kalena waxaan ugu baaqayaa guud ahaan madaxda dhaqanka ee beelaha garxajis iyo culimadiinka iyo waxgaradkaba in aanay ka daalin sidii dadaalka faraha badan la ay u geliyeen Somaliland ugu hiiliyeen ee nabadda ay uga shaqeeyeen ka sii shaqeeyaan madaxweynaha iyo xukuumadana waxa ugu baaqayaa inta harsan farsamadeeda iyo fududeynteeda iyo furdaaminteeda sharciba inay iyaguna ka shaqeeyaan oo ummadda isu soo jiidkeeda iyo isku wadkeeda waa wixii loo doortay iyaguna ay ka shaqeeyaan ayaan xukuumadana ugu baaqayaa Sultan sidoo kale maalmihii u dambeeyay waxa social media ama bulshadu aad uga hadashay safiirka Djibouti u jooga Somaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa ayaa waxa uu si toos ah media u soo fadhiistay isla markaasina uu hadallo eedayna u mariyay Faysal Ali Waraabe gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID arrinta lafteeda sayid aragtaa ka sharci ahaan iyo qaanuunka siyaasadda ama diblomaasiyadeed ma ku haboon tahay in dal uu ajaanib ku yahay safiir oo media si toos ah u soo horfadhiisto wallahi kulli dawladda sharciyada waxay la tahay anagu madaxqabeed baanu nahay bulshada dhaqan baanu mas'uul uga nahay xadiida sharciga ku shaqaale la weydiin doonaa ama aqoonta sharciga nagu dhaanta wuxuuna saqawaa Djibouti waa dal aynu jaarnahay waa dal maanta ummad Soomaaliyeed ummad islaam ah isku dhaqanayno nahay waxyaabo fara badan ilmiye arrimo fara badan inaga dhaxay xil dheer aynu leenahay waxaan qabaa in qadarintu in labada dhanba ka socoto inana aynu qadarino iyaguna ayna qadariyaan xiriirkeenu aanu noqon waxda yoontan iyo hadal laba qof ummadu waa basharode qof ama xil haya ama yaanu haynin hadalku waa ka bayri karaa laakiin siyaaba loo waaweynaa ama safar loogu qaaday waxaan qabaa in xiriirkeenu ka qoto dheeriyay Djiboutina boqoliyo iskaashan dawladeed baa adduunka guudkiisa ka jira weli midaynu aqoonsi rasmi ah ka haynaa ma jirto laakiin mucaamalaad fara badan baa adduunyada dhan naga dhaxay Djiboutina kuwaas un bay ka mid tahay marka iyadana sababaynu si gaar ah ugu bartilmaameedsanaa ma jirto kulli iyaguna ixtiraamkeeda iyo ilaalinteeda iyo Soomaalinimada iyo wadajirka Somaliland iyo jaarnimada ayuu man deegan xagoodana horena uga aynu isugu qabnay maantana ka rajeynayna si kobco oo si koro wasaaradda waxbarashada Somaliland iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay ee private-ka mudooyinkii u dambeeyay waxa ka dhex taagnaa khilaaf ballaaran khilaafkaasi oo muddo badan soo jiitamay khilaafka laftiisa seed u aragtaa ilaa hadda wasaaraddu wax tallaabo ah kama qaadin dugsiyada private-ka horta tii xooyaan waxbarashada Somaliland maraaxil fara badan oo kala gedsan bay soo martay sharciyan waxa wasaaradii line ministerka ahayd waxbarashada public iyo private ba oo iyada mas'uuliyadaasi qabta waxa meesha ku jirta maadaama waxbarashadii public ahayd mas'uuliyiintii wasaaradda waxbarashadu aanay baahida waxbarashada dalka taali wada dabooli karin oo ay duruuf keentay in private-kiina uu garab socdo public in qolo waliba ay ilaaliso
oo ixtiraamto dee qaabka loo wada shaqaynayo oo wasaaraddana roolkeedii dee line ministerkii ay u ahayd iyo haddii dowladnimadu ila way kobcaysaa oo way koraysaa ay madaxa wasaaraddu soo yar durkiso inaanay privatekuna dee didmo ka qaadin dowladdana dee waxaa la gudboon inay privateka koriso oo ay kobciso waayo intermediumkii iyo elementarygii iyo secondaryadii iyo jaamacadihii ummad fara badan ay privatekii gacanta ku hayaan oo ay soo saarayaan marka ragga dee mujtamac warshada ah ee mujtamacii bulshada qaybo ka mida marka 3 meelood loo qaybiyo meel ahaan waxbarashadii gacanta ku haya iyaguna ixtiraamkoodii iyo ilaalintoodii iyo korintoodii iyo kobcintoodii leeyihiin marka in safkarad lagu dhammeeyo oo la isu yimaado media waxba la isu marine wixii dee la isla eego uun arrinihii labada ka dhexeeyay lama kala maarmaye uman ku talin lahaa oday ahaa suldan su-aasha ugu dambaysa casuumaadda ay jubbaland u samaysay qaranka jamhuuriyadda somalilan sideed u aragtaa jubbaland waxay ka mid tahay dowladda federaalka ee soomaaliya istiidadeeday ka mid tahay axmed madoobe iyo farmaajona waxay da isku hayeen waxay uun siyaasad qaabkii doorashada u dhacday uun wax kale oo day ka dhexeeya ma jiro waanay ka heshiin karaan berrito haddii ilaahay qadaro marka innagu inaynaan dee factioniska soomaaliya maamul goboleedadeeda inaynaan ku milminoo siyaasadahooda daakhiliga aynaan faragelinin ayuuman dee anigu kolley ku talin lahaa sabab aynu uga qayb galay calaamasaarka axmed madoobe ama siyaasiyan wax mustawo ah oo aynu halkaa inoogu jira ama magacoo inooga soo kordhaya anigu ma qabo inuu muuqdo waanay ka heshiin karaan khilaafaadka iyaga u dhexeeya innagana cidda waxay naga dhexeeyaan waa soomaali oo isku dhan soomaaliya itaaliya intii la odhan jiray talyaani gumaysan jiray ayuunbaa innaga waxay naga dhexeeyaan siyaasadooda arrimaha dibadda markay noqotay somalilan ku aadana waa ka midaysan yihiin oo ma qaba inay ka gedisan inuu axmed madoobe qabato farmaajo uu qabo waa mustafi axmed samakaab telefishinka caalamiga ah ee ramad TV gudaha magaalada hargeysa